نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي qisooyinka nebiyada. qisada aan maanta ka sheekayn doono waxay ka hadlaysaa geeridii aabaheena aadam calayhi salaam. markii ay geerida u timid aadam calayhi salaam wuxuu u yeeray carruurtiisa isagu uu ku yidhi ilmahaygiyow waxaan doonayaa inaad ii doontaan ama aad ii keentaan midhaha jannada. markaasay dhammaantooda waa ilmihii aadamee ay galeen raadinta midhaha jannada ayagoo ka raadinaya dunida. inta ay raadinta midhaha jannada ku jireen ayay waddada waxay kula kulmeen malaa'ig saddex xanuudkii iyo karfantii lagu aasi lahaa aadam calayhi salaam iyo waxyaabihii qabrigii lagu qodi lahaa. waxay malaa'igtii weydiiyeen ilmihii aadam halkee ayaad u socotaan? waxay ku yidhaahdeen aabbaheenna ayaa xanuunsan wuxuuna doonayaa midhaha jannada. asaa malaa'igtii ayaa ku tidhi haddaba laabta oo dib ugu laabta aabbihiinna waa uu naf baxaye yacnii wuu geeriyooday. intaas kadib malaa'igtii waxay u yimaadeen aadam waxaa markaas la joogtay hooyadeenna xaawa markay aragtay malaa'igta u soo socota aadam waxay aqoonsatay in ay malaa'igta u yimaadeen maanta inay nafta ka qaadi doonaan saaxiibkeeda ama ninkeeda oo feertiisa laga abuuray. kadibna waxay ku dhegtay aadamna wuxuu ku yidhi iddaa xaawoy waxaan dhashay adiga hortaa ee isku keena daa aniga iyo malaa'igta rabbigay. asaa intaas kadib waxay malaa'igtii ka soo saareen naftii oo meereen jidhkiisa oo karfaneen una mariyeen udgoonkii. dabadeed waxay qodeen qabrigii aadam calayhi salaam oo ku tukadeen kadibna aaseen. intaas kadib waxay dhaheen ilmo aadamow waa inaad sidaan oo kale u duugtaan ama aad u aastaan meytadiina. ibnu isxaaq wuxuu yidhi geeridii aadam kadib qoraxda iyo dayixu waxay madoobaadeen 7 habeen iyo 7 maalmood. waxaa sidoo kale la soo wariyaa markii uu aadam geeriyooday in dhammaan ummamka oo dhan ooyeen 7 maalmood. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي qisooyinka nebiyada.